shamcii kulaylka darnaa. Macallimad ayaa gaari waxay ku soo kaxaysay arday si ay ugu soo dalxiisaan meelo qurux badan. Gabadh ka mid ah gabdhaha ayaa waxay aaday meel ka yara baxsan meeshii lagu dalxiisayay. Markii la gaaray xilligii bixista, gabdhihii dhan waxay koreen gaariga. Gabadhani marka ay maqashay codka gaariga, waxay dhigtay wixii ay gacanta ku haysay oo dhan, waxayna ka daba qaylisay gaariga iyadoo gacanta u hatinaysa. Nasiib darro, cid maqashay ma aysan jirin, gaarigiina waa uu fogaaday. Gabadhani waxa ay ku socotay meelaha u dhow iyadoo baqanaysa. Habeenkii markii la gaaray, waxa ay maqashay codka waraabaha, taas oo gabadhani ku sii badisay baqdinta. Isla markiiba waxay aragtay teendho yar oo iftiin ka shidan yahay. Waa ay faraxday, waxa ayna aaday xaggii iyo teendhada. Teendhada waxaa degan wiil dhalinyaro ah oo sabool ahaa. Waxa ay uga sheekaysay waxa qabsaday. Waxa uu ku dhahay, waayahay, caawa aniga ila seexo. Beritoole waxaan ku saari doonaa gaari kale si uu kuu geeyo gurigaaga. Wuxuuna u sheegay in iyadu ay seexan doonto sariirtiisa, asna uu seexan doono dhulka. Gabadhana waxay ahayd mid qurux badan, kana soo jeeda qoys lacag leh. Wiil walbana uu ku riyoonayo inuu iyada helo si uu u guursado, waana wax ay dheereed gabdhaha kale. Habeenkaas waxaa soo wajahay cabsi daran, mana aysan seexanin habeenkii oo dhan. Dhowr jeer waxay aragtay wiilkii dhalinyarada ahaa oo kitaab akhrisanaya, soo istaagaya, soona aadaya xaggii shamaca baxayay. Waxa uu ku daminayay farihiisa, dib ayuuna u daarayay, waa uuna ka soo tagayay ilaa ay ka gubteen shantiisa farood. Waxa ay malaysay in wiilkan uu waala yahay. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Markii waagu uu baryay, waxa uu u kaxeeyay meesha baabuurta laga raaco. Markii ay gurigeeda ku soo laabatay, waxa ay aabbaheed uga sheekaysay waxa ku dhacay oo dhan. Aabbahan waxa uu jeclaystay inuu soo ogaado wiilkan dhalinyarada ah, sababta keentay inuu farihiisa gubo. Ugu dambeyn, aabbihii waxa uu soo gaaray teendhadii hoyga u ahayd wiilka dhalinyarta ahaa. Waxa uuna arkay farihii wiilka oo faashad ku duuduuban. Aabbihii waa uu weydiiyey, maxaa kaaga dhacay farahaaga? Wiilkii ayaa ugu jawaabay, xalay waxaa ii imaatay gabadh habowsan, wayna ila seexatay. Mar walba waxaa ii imanayay shaydaan. Waxaan akhrinayay qur'aanka si shaydaanka uu igaaga tago, laakiin ma uusan iga tegin. Waxaan gubay fartayda si aan u xasuusto xanuunka cadaabta jahannamo. Waxaan ku noqday booskayga. Shaydaankii ayaa ii imaaday mar labaad. Waxaan sameeyay sidii oo kale ilaa shantaydii farood ay gubtaan. Aabbihii wuxuu ku yidhi, kaalay ii raac gurigayga. Markii ay gurigii yimaadeen, wuxuu u wacay gabadhiisa, wuxuuna ku dhahay, ma garanaysaa gabadhani? Wiilkii dhalinyarta ahaa wuxuu ku dhahay, haa, waa gabadhii xalay ila seexatay. Aabbihii wuxuu ku dhahay, waan ku siiyey gabadheeda, laga bilaabo saacan waa xaaskaaga. Nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu dhahay, ugama tegaysid Alle dartiisa shay ilaa Alle subxaanahu wa tacaala uu kugu beddelo shaygaas shay ka khayr badan. Wiilkii dhalinyarta ahaa waxa uu la dhacay sujuud si Ilaahay ugu mahadceliyo, maadaama uu Eebbe ugu beddelay xaaraantii xalaal.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan sabskaraib saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah. mahadsanid.